ciidanka kooxda Arsenal ee Mesut Ozil ayaana markaa la rumaysan yahay inuu u dhaqaaqi doono mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Mareykanka maadaama la xusay in ciidankani u dhashay wadankaasi Germany Mesut Ozil in xilligan loo gacnaatinayo horyaalka wadankaasi Mareykanka gaar ahaan kooxda kubadda cagta DC United sida markaa ay qorayso jirida The Daily Star waxna warbaahinada ka soo baxay wadankaasi Mareykanka ay leeyihiin maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee DC United waxa ay doonayaan in xidigaasi Ozil uu buuxiyo booska Wayne Rooney waxaana ay sheegeen in uu laacibkaasi Ozil uu yahay xidiga kaliya ee u qalma bedelka xidiga Wayne Rooney hadaba Ozil ayaa ciyaaryahan mushaar aad u fara badan ka qaadanaya kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana la leeyahay kooxda reer Mareykanka in ballanqaadyo xooggan ay u sameyn doonto haddii xidigaasi Ozil uu aqbalo in uu u soo dhaqaaqo horyaalka wadankaasi Mareykanka asagoona Ozil bil ka hor oo u waramay qaar ka mid warbaahinta wadankaasi Ingiriiska waxaana uu sheegay inuu wali ku qanacsan yahay qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta Arsenal laakiin waxa la aaminsan yahay in Ozil ay dhici karto inuu u dhaqaaqo horyaalka wadankaasi Mareykanka gaar ahaan kooxda waqtiga kan xaadirka ay dalabka ka soo gudbinaysa ee DC United waryaanka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Roberto Lewandowski ayaa dhinaca kale xusaya in Philippe Coutinho uu wax weyn ku soo kordhin kara qaab ciyaareedka kooxdaasi labada kooxood ee Barcelona iyo Bayern ayaa dhawaan markaa isku afgartay in ciyaaryahankaasi in hal sano waqti uu ku soo qaato garoonka Liana ee kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich balse waxa la sheegay in ciyaaryahanka u dhashay wadankaasi Poland Roberto Lewandowski uu leeyahay runtii aad ayaan ugu faraxsanahay wada hadalka soo idlaaday ee Barcelona iyo kooxda kubadda cagta Bayern Munich maxaa yeelay xidigan Philippe Coutinho waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waana laacib ay u baahan tahay waqtiga kan xaadirka in ay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich marka uu ka soo dhex muuqdo ciyaaryahankan ayaa sidoo kale waxa xiiseynaya koox aad u fara badan oo ay kamid ah sida kooxdiisa hore Liverpool Arsenal ayaa sidoo kale daneynaysa Manchester United ayaa kamid ah kooxihii sida gaar u daneynaya iyo kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska balse Roberto Lewandowski waxa uu leeyahay anigu aad ayaan ugu qanacsanahay Coutinho mar waliba waxaan aaminsanahay in Philippe Coutinho uu wacdara xoogan uu ka muujin doono horyaalka wadankaasi Germany kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan horyaalka Spain ayaa dhinaca kale xoojinaysa in toddobaadkani ay xooga saarto dalabkeeda ku aadana Neymar ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain maamulka sare kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa daneynaya in ay xoojiyaan talabkoodii laba jibaarka ahaa ee Neymar maadaama wiilka reer Brazil ee Neymar uu diyaarinayo ku soo laabashada Stadia Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barca marka ay ku ciyaarto gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaana markaa kalsooni weyn ku qaba in dalabkaasi ay xoojiyaan maadaama ay horay dhowr dalabyo kala duwan ay u soo bandhigeen madaxda kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain laakiin wax jawaab ay ka waayeen balse madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa markaa kalsooni buuxa ku qaba mar haddii Neymar uu aad u dooranayo inuu dib ugu soo laabto kooxdiisa sare ee Barcelona in uu sida ugu dhaqsiyaha badan markaa uu ku soo biiriyo waana ujeedka ugu weyn ay maamulka kooxda kubadda cagta Barca ay leeyihiin in Neymar uu noqdo laacib mar kale ka soo dhex muuqanayo horyaalka Liga wadankaasi Isbaanishka ayadoo dalabka ciyaaryahankaasi Neymar sidoo kale ay ku jirto kooxda kubadda cagta Real Madrid ay aad u xifaaltamaan kooxda kubadda cagta Barcelona madaxda kooxda kubadda cagta PSG ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa ay sheegeen in ciyaaryahankaasi ay u gacan gelin doonaan kooxda kubadda cagta Real Madrid oo lacag waali ah ku doonaysa Neymar in ay markaa dib ugu celiso horyaalka Liga wadankaasi Isbaanishka balse gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona waxa uu rumaysan yahay toddobaadkani in ay soo gabagabeyn doonaan wada hadalka ku aadan xidigaasi Neymar oo waqtiga kan xaadirka uusan jecleen inuu ka sii dhex muuqdo magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska mar kale ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxa loo diidan yahay hamigeedii ku aadana ciyaaryahanka reer Afrika ee Koulibaly ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Napoli warbaahinada wadankaasi Talyaaniga ayaa xusaya in madaxda sare ee kooxda kubadda cagta ee Napoli wali ay ku taagan yihiin go'aankooda ahaa in Koulibaly uusan ku bixi karin adduun lacageed gaaraya 90 milyan oo lacagta Euro-ga ay ku doonayso kooxda kubadda cagta Manchester United in markaa ay kula soo wareegto ayadoo kooxda kubadda cagta Manchester United wali aysan ka quusanin dalabka xidigaasi Koulibaly haddana waxay ku faraxsan yihiin in ay Manchester United ay ku soo guuleysatay saxiixeedii ku aadana xidiga Harry sida ay qorayso jirada Gazzetta dello Sport ayaa la sheegay in maamulka kooxda kubadda cagta ee Napoli ay doonayaan adduun lacageed gaaraya 150 milyan oo lacagta Euro-ga in Koulibaly uu kaga dhaqaaqi doono gegada kooxda kubadda cagta Napoli ninka kan gudoomiyaha waa kooxda kubadda cagta ee Napoli
Aurelio De Laurentiis ayaana markaa sheegay in ka yar 150 milyan in Koulibaly uusan ku aadi doonin Stadia Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United maadaama wali Man U ay taagan tahay in ay bixiso adduun dhan 90 milyan oo lacagta Euroga. Tababaraha kooxda kubadda cagta Inter Milan Antonio Conte ayaa madaxda kooxda kubadda cagta Inter kula talinaya in ay la soo wareegaan xidiga Alexis Sanchez. Laacibkani waqtigiisa ku baaba'ay Stadia Old Trafford ee Alexis Sanchez ayaana markaa la sheegayaa in dalab la yaab leh uu ka soo gaarayo kooxda kubadda cagta Inter Milan maadaama uu tababaraha kooxdaasi Antonio Conte uu doonayo in Alexis Sanchez uu qayb ka noqdo isbedelada uu la damacsan yahay Inter in markaa ay ka samayso horyaalka wadankaasi Talyaaniga. haddaba Antonio Conte ayaa doonaya in shaxdiisii ahaa 3-5 in uu markaa uu ka mid noqdo xidigaasi ka tirsan kooxda Manchester United ee Alexis Sanchez. Antonio Conte waxa uu leeyahay runtii waa ciyaaryahan cajiib badan waana laacib aan isleeyahay isbedel ayuu ku soo rogi doonaa Stadia kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. qaab ciyaareedka xidiga Alexis Sanchez waa mid loogu baahan yahay horyaalka wadanka Talyaaniga waxaan siin doonaa fursad uu isku soo muujiyo maadaama waqtiga kan xaadirka Alexis Sanchez uu yahay ciyaaryahan aan ku qanacsaneyn in uu la sii joogo kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana uu ciyaarankani uu yahay mid diidan inuu mar walba uu noqdo laacib ka soo dhex muuqda kursiga keedka kooxda kubadda cagta Manchester United. haddaba mid ogow Alexis Sanchez wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda aadka u nacbeystay in bedelada lagu sameeyo kursiga keedkana uu ka soo dhex muuqdo balse Antonio Conte wuxuu walwal xoogan ka qabaa in kooxda kubadda cagta Inter Milan ay caqabad xoogan ay ku noqon karto lacagaha faraha badan oo toddobaadkii uu ka qaadanayo kooxda kubadda cagta Manchester United. maxaa yeelay Alexis Sanchez wuxuu toddobaad walba kooxda kubadda cagta Manchester United uu ka qaadanaya adduun dhan 560,000 oo lacagta banka toddobaadkiiba waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan ay doonaysaa in Alexis Sanchez 4 sano heshiisa marka ay la galaan asagoo qaadan doono adduun dhan 5 milyan xil ciyaareedkiiba. difaaca kooxda kubadda cagta Real Madrid Capitano Sergio Ramos waxa uu leeyahay waqtiga kan xaadirka Real Madrid waxa ay noqon doontaa mid ay si weyn kaga dhex muuqato dhammaan tartamada xil ciyaareedkani ay ka qayb qaadan doonto. Sergio Ramos ayaa u jawaabay qaar ka mid ah warbaahinada wadankaasi Spain oo xusayay in Real Madrid uu calankeeda markaa uu dhacay balse Capitano waxa uu leeyahay runtii waxaan aaminsanahay waqtiga kan xaadirka ay kooxda kubadda cagta Real Madrid ay heshay ciyaartoy tayo aad u wanaagsan ciyaaryahano mucjiso xoogan ka muujin kara dhammaan koobka ay xil ciyaareedkan ka qayb qaadan doonto kooxda kubadda cagta Real Madrid. waxaan marka la wada shaqayn doonaa macallinkayga Zinedine Zidane waa macallin khibrad weyn u leh tartamada laga ciyaarayo qaaradda Yurub. kooxda kubadda cagta Real Madridna waxay mar waliba ay tahay championka adduunka. haddaba Sergio Ramos ayaa dhinaca kala sheegay in kooxda kubadda cagta Real Madrid aan lagu cabsin gelin doonin isbedelada ay kooxda Barcelona ay ka sameynayso horyaalka wadankaasi Spain. anigu waxaan aaminsanahay koox walba ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Spain in ay markaa la mid tahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. ma jirto Real Madrid koox ay walwal xoogan ka qabto xil ciyaareedkanina waxaan kalsooni weyn ku qabaa in aan si weyn markaa u noqono kuwa difaacdo koobka laga ciyaarayo horyaalka Spain. waxaan sameyn doonaa xarakaad ay ku farxaan dhammaan taageerayaasheena dunida mal waliba ay ka joogaan ayaa laga soo xigtay Sergio Ramos. kooxda kubadda cagta AC Milan ee ka dhisan horyaalka wadanka Talyaaniga ayaa sidoo kale baadigoobaysa ciyaaraanka kooxda Real Madrid ee Mariano. laacibkan kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Mariano Diaz ayaa markaa la sheegay inuu walwal xoogan waqtiga kan xaadirka ka soo wajahay mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid waxaana uu leeyahay waxaan ka cabsi qabaa inaan ka soo dhex muuqan waayo dhammaan koobka ay xil ciyaareedkan ka qayb qaadanayso kooxda kubadda cagta Real Madrid. kooxda AC Milan ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga ayaa doonaysa in fursad wacan ay siiso waryahankan ee kooxda Real Madrid ee Mariano Diaz. haddaba jirada Gazzetta dello Sport ayaana markaa shaacinaysa in kooxda kubadda cagta AC Milan ay ka go'an tahay in wada hadallo markaa ay la furato ciyaaraankan xil ciyaareedkani. Mariano ayaa sheegay in ay ku weyn tahay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Real Madrid balse waxaan u baahanahay fursad wacan inaan ka helo kulan walba ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ciyaarayso. waxaan aaminsanahay inaan fursad xoogan aan ka heli doono macallin Zinedine Zidane. ninka kan ayaana kalsooni weyn ku qabaa in kooxda kubadda cagta Real Madrid mar uu noqon doono hogaamiyeeda. kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa kooxda kaliya ee waqtiga kan xaadirka doonaysa in Mariano ay mustaqbal wacan ay albaabadiisa u furto. ugu dambeyntiina daayirka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Sancho ayaana markaa sheegay in uu iska dhaqaaqi doono xil ciyaareedkani kooxdiisa maadaama 19 jirkan u dhashay wadankaasi Ingiriiska ee Sancho uu sheegayo in uu xil ciyaareedkani wixii ka dambeeya uusan baaqi ku sii noqon doonin Bundesliga wadankaasi Germany.
waxaan diyaar u ahay inaan iska dhaqaaqo gabi ahaanba kooxda Borussia laacibkani Sancho ayaa waxa aad u xiiseynaya labada kooxood ee ka dhisan Premier League ee Manchester United iyo Manchester City asagoo ciyaaryahankan oo qiimihiisa la gaarsiiyay adduun lacageed gaaraya 100 milyan oo lacagta banka waxaana la xusay in maamulka sare kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund in durbadiiba ay bilaabeen beddelka rasmiga ee u qalma xidigaasi Sancho oo diyaar u ah inuu isaga dhaqaaqo xil ciyaareedkani kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayagoona u dhaqaaqay maamulka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund beddelka xidiga Sancho ciiraankani Sancho ayaana laga yaabaa in midkood uu cagirigto sida kooxdiisa hore ee Manchester City ama Manchester United sidoo kale laacibkani Sancho waxa ku soo biirtay dalabkiisa kooxda kubadda cagta Lyon ee ka dhisan horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska